maanta waxaa xarunta nagu soo booqday abees baacow oo mid ka mid ah dadka ugu caansan magaalada muqdisho oo uu la socdo ninkii caanka ah xasan toob ahaa. waxaan rabnaa inaan klinik ahaan ugu tabarucno in ilkihiisa maadaama ninkan xaaladii hore uu ku jiro uu kasoo baxay xaalad kale uu kusoo biiray, inaan ilkihiisa sidiisa ugu soo celino. dhakhtarka iyo dhammaan way wada joogaan. abees hay maxaad dareemaysaa? waxaan dareemahay male alxamdulilah alshukrillah maanta ilaah mahadda ku leh. haddoo walaalkay xasan toob ahaa laheen kuuliistinimadeeda iyo wixiigaa iskaga jir laha, laakiin maanta waxay soo gacan qabtay oo ay soo ballaan dhigay waa xasan toob. alxamdulilah alshukrillah ilaah mahadda iskale. Fayo hospital la-aan ah hawshan kugu qabanayso. bal maxaa leedahay aygana? war adiga ha noolaadaan, cidoogana allaha ka qabto. inta aniga magaalo ku jiray wax haddaa i gacan qabto oo maanta isoo daaweeyo ilkihey ka fikiraa daawaawaay, laakiin maanta waxaa ku dhex jiraa fayo clinic. clinic. alxamdulilah alshukrillah. dhakhaatiirta fayo inta clinic oo joogto, dhakhaatiirta meel joogto dhan ilaa ay jirka ilaa ay wejiga macal ilkaha. ninkii ilkaha lakab oo u jira haddaa waa imaa karaa. alxamdulilah alshukrillah. dhakhaatiirtaas haddana tusaad ilkaaga markii lagu shaqeeyana sidaas oo kale nadiifa laga dhigaya insha allah. dhinacan eegaana firaya waa kaas. gabdhaha maxaa leedahay oo wejiga iyo fimanka ugu soo baxeen? iyo gabdhaha fimanka wejiga oo soo baxa way saacadeynayaan, ha imaadaan fayo clinic. clinic. fayo clinic. okay, waxaan rabnaa laba su-aal inaan weydiino dhakhtarka. doctorka magaciisa maxaa la dhahaa? doctor maxamed. كورن نكا حالتي كيف حال هذا الرجل؟ يعني بدأ شوية معلومات عن حالته. صح. ترجمة سمعي. أنا سمعي إنجليزي ليه بس عربي؟ عربي. أسأل. شوف يا أخي. الأخ هنا خالع واحد اثنين، خالع حبتين. أوكي. laba xabaa ka maqan uu leeyahay kiisa oo hore ugu dhaceen فرمي. اوكي. خالع حبتين هنا. عنده حلين هلا لتركيب له الوجه، اما نركب له من الحبه دي للحبه دي او نركب له من الحبه دي للحبه دي. لكن عنده هنا تراجع في العظم على السن ده. si loo soxo ilkiisa waa labadaas iyo wixii kaloo la buuxinayo labada kala gees ah in la helo si loo dhammaystiro afkiisa oo ilka siman loogu sameeyo. وهنا السن يتحرك حركه خفيفه. kuwa way la liqanayaan labada geeska maadaama oo ay ahaayeen ilka oo wax badan oo wax uu kusoo qabsada bas. إذا ركبنا له جزء على المستقبل يصير في مشاكل من haddii sidaan uu yahay labadaas asaas ugu sameeyo mustaqbalka waxaa laga yaabaa in dhibaato ay ka imaato. sida daraaddeeda marka labada kalena in la bixiyo oo lagu wada xiro afartood loo geliyay ay noqonaysaa. لذلك أفضل حل تجميلي مشان الأكل من الناب إلى الناب 6 حبات. دكتور كما ذكرت آنفا هذا الرجل انه مشهور كما عرفت. كيف ترى مستقبله وكيف ترحب؟ ما شاء الله يرجعوا أسنانه زي ما ولدته أمه إن شاء الله. ما شاء الله. waxaan ka dhigana dhahay sida ay hooyis ee dhasho kale ilkaan waa nadiifinayna wasaqdan iyo wixii kale u gaaran waa laga nadiifinaya yiri insha Allah sida ayada hooyada dhasho ma laga dhigaya oo ku soo baxay. awees ugu dambe maxaa leedahay marka? awees ugu dambe maxaa leedahay? doctor oo Syriana ku shaqeynay awees maxaa leedahay? waa qanacsantahay ma maxaa leedahay? waa qanacsana. alxamdulilah alshukrillah ilaah mahadda iskale. aad iyo aadaan u qanacsana. waya doctor waxaan rabaa inaan ku weydiiyo meeqa sana professionkan ku jirtay maadaama كم سنوات تشتغل بالعيادة الأسنان؟ كم عمره هو؟ أنت ما يقدر هرطة. أي مثلا ما سنة جرتها بس 8 إلى 20 سنة.
28 28 انا لي 21 سنه اشتغل. ما شاء الله لواتي كوسنا كشقينا ودا بابا اكسبيرينس سوري ودلك كليا كوفي عام دنتالك اما ديب الاسنان كوفي لما عام كنت- في العالم أليس كده أليس كده سوريا لما بدات اشتغل كان عمره 7 سنوات. مركب شقاهم بلا عودا بس وحجري محل لها تدوسن وجري لكن دكتور الدم كان مقطع. عندك انت لسه شاب لا 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 عمري 43 ما سنه. شاء الله ما شاء الله متشكر قوي قوي هذا ما سيء ما شاء الله. انا اسكو دادان ودhahay صح. بس ugu dambeyn maxaa leedahay عاوز بقى فوات ugu dambeyn waxaa leeyahay dhakhaatiirta joogto فايو كلينيك. faas fayo fayo clinic اوكي. madaxeeda kor ha loo ka dhig dadka oo ilkaha la kabka ku yaala dadka ilkaha wasaqda ka ah dadka oo ilkaha qofkii ilkaha wasaqka gabdhaha ah isqurxinaa maxaa leedahay dhammaantood maxaa ugu baaqi qofkii ilkaha wasaqka ah iyo gabdhaha sacadeynaya wejiga fiminka oogu soo baxay iyo ninka ilkaha lakab oogu yaalo iyo qofkii ilkaha ka jabsanba a imaado fayo clinic اكثر تلفزيون يوتيوب اكثر يوتيوب شانل نعم هذا الرجل انه حسن توب حسن توب اسمع الله اسمع حسن توب هذا رجل مشهور حسن توب وعانه هذا وما سيدي بس ان شاء الله يلقى دوال عبري وقتها soo socda ilkaha dhammaystiran ayaa helaysaa waa soo dhow fay clinic ku soo dhow فايو كلينيك. ku dhawaa alxamdulilah ان شاء الله noloshaada rasmiga kugu soo celinayna in sha Allah ugu dambeyn dadka oo raba in shaqadan oo loo qabto shaqadan in loo qabto admaanta lagu qabanayo u dig u sheeg bal dadka biraha in loo geliyo rabo all wixii qof alaala qofkii intii qalin loo geliyey rabo iyo qofkii bir intii loo geliyey rababa kulli wuxuu imaanayaa fayo كلينيك. clinic thank you كلينيك واي thank you كلايو استاذ يوسف ugu بالجوين. dambeyn waxaan leenahay waxaan mahad celinaya ilaahay subxaana wa tacaala kadibna faya clinic iyo doctor maxamed oo waqti ku bixiyay iyo xasan toob oo walaalkiina awees nacla aabaa ku yeeli waa may horteen anistaan عوايس علي بافو. awees cali baafo waxaan leenahay soo dhawaada insha allah qofka bini aadanka nolosha marmar waxaa dhici karta inuu ka qaldamo laakiin inuu dib ugu soo noqdo uu noqdo qof noloshiisa ay tahay annaga ka fay ahaanna waxaan damac insha allah waxaan rajaynaynaa sida haddaba aan bilownay in ilkiis aan kusoo celino qaybtii aan naga aadan aan maxay ahayto aan ka qaadano isla markaasi free ah insha allah ilaahay subxaana wa arrintan oo way ku tacaala biirteen ka faya clinic ahaan. fayo clinic muddooyinka ugu dambeysaba meel markii la furaba waa meel bulshada ay ka imaatay shacabna ay leeyihiin sidaa daraaddeeda dadka mar walba waxaa loo sameynayaa maxaa la dhahaa qiimo dhimis qofka haysanin sidaas lamid ah macaamiisha noo imaato oo inta badan ay ka cabanaya ilkaha maadaama ay yihiin ilkaha wax ugu muhiimsan oo qofka bini aadamku ku nool yahay sidaas lamid ah fay clinic waxay leedahay meel oo maqaarka ah dhakhtar maqaar ah oo isagana maxay ahayto carab ah oo ayaa joogo kuwaasoo lagu daaweeyey oo kiisas badan u badan yahay dadka dadweynaha ama bukaanada jirka iyo wejigaba fimanka ugu soo baxa kuwa oo daawada sida qaladka u isticmaala iyo dadka xanuunka ku imaada oo intaba sidaas lamid ah doctor maxamed wuxuu maalin walba qaabilayaa dad tiro badan oo maxay ahayto oo doonaya kuwa ilkahooda kala sareeyaan inuu u xiro kuwa maxay ahayto ilkahooda ay yihiin kuwa uu ku badan yahay inuu saxo abuurista ilkaha raajitada nooc walba sidaas lamida fay clinic waxay leedahay qayb kale oo fay hospital ah oo iyadana qaliino lagu sameynayo weliba meeshii ku soo baaray waan soo baaray waxaan u caddeynaya ummadda soomaaliyeed in awees caafimaadkiisa dhammaan dhiigga laga qaaday uu boqolkiiba boqol yahay oo baban yahay weliba dhakhtarka saas uu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala ku maadsan qofkii aaminsan in qofka hadduu kooliste yahay ama uu yahay nolosha uu kusoo noqon karaa duruuf ayaa u geysay uu kasoo noqon karaya marka waxaan ummadda soomaaliyed u sheegayaa in xilligan ay jirto qaliin oo burooyinka iyo eernooyinka oo free ah ayna ka jirto isbitaalka faya si ay u gaaraan marka aad isbitaalka faya halka ku yaala iyo faya clinic halka ku kala yaalaan labada faya clinic waxay ku taalaa dabka isgooska dabkay ku taalaa qaybta oo ilkaha iyo maxay ahayto maxaa la dhahaa jir skinkaba ama maqaarkaba halka faya hospital uu ku yaalo maxay ahayto isgooska
شعل السوفي أما كي بي عد بس أتقن هالكي هاجر جامعة السلام هذا ما سنتي عشان توفي دمان دكتور محمد أول سؤال إن شاء الله. Nice to meet you all. أهلا وسهلا. daawadayaal maxay to soo dhawaada bukaanada xayiisaan loo muujinayo laakiin ninkan maadaama nin caan uu yahay tabarucaadna loo sameeyay asaga codsaday in tabarucaad loo sameeyo aad oo maasantihiin Fay Clinic halkaas ay nooga eg tahay tani kulanti dab waxaa idin leenahay. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh.